doonayna abna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warnimada waxaa la yidhi inta dawladdeennu kursiga lacag ku doonayso madaxduna codkii doorashada kala dulaalayso ayagaa danaysanahayee nama difaacaane haddii aysan dabandaabyada iyo beenta naga daynin oo ay dulmiga sii wadaan dibudhacaan keenay inaad naga dulqaaddaan rabbiyow kaa dalbanaynaaye mar kastoon dulqaad muujinno inooga darayaane waana shay duruuriya inaan kugu dacweynaaye adaa dhagax ka soo daadin kara meel dushooda ah guryahana ku soo dumin karoon lagula doodayne ilaahow ha nugu daawan waa dadan xishoonayn aroo anigu waaba kaa yaabayee gabaygaada qarandumisoo ma aha dad wax waa loo sheegay hadday kuwaana qaadahayaan war doorashaan lacag ku bixin xiise ma yeelanayso aryaadhaha wax la'aan wax uunaa dhaanta waradhaha war ma haysaane doorashadii guddoonka baarlamaanka galmudug waxay meesha ka saartay baawar sheerinkii beelaha waxaa kaloo lagu ogaaday codka madaxweynaha soo bixi doonaa intuu leegyahay war nabadiyo nolol doorasho qof iyo codabay soo wadaa baawar sheerin beelna ma taqaana wax la yidhaah war doorashada galmudug waxaa ka shaqeeyey dhegdheer dhegey dhuxulow jilibey geney faray lugay ilay iyo yaxye cali hareeri war waad qaldantahay calijaabku jiraad ilowday oodey iyo madaxeeyaad ilowdeen aryaadhaha doorashada galmudug dayre iyo qarafaana ka shaqeeyey xeeyihin waxaan kalood ku meeraysa haysiin war ma haysiine waxaa la ogaaday xayndaabka xildhibaanku waraaqda la gelayo codka ku saxiixayo in kaamira ku xirrayd yaa taasu maydaa doorasho xora ahe waa idooro aad u jeedeen war dad waalnaa tihiine kaamirada ammaankaa lagu sugay yaahu war kaamiradu lacagta iska soo celi cod ima siina miya war ha isku wareerine waa doorasho faashiyoona eebaagoo lacagta fadhixumo lagu dhiibo fashilay ku dhammaataa xildhibaanada waxaan kula talinayaa inaysan iloobin dardaarankii sheekh bashiir axmed salaad oo ahaa lacag laaluusha haddaad qaadateen oo ku dambowdeen hadda codka ku cibaadaysta wareedhaha war ma haysaane doorashadii galmudug waxay dhashay maamul laydhaha mareeg state oo caasimaddiisu ceel dheer tahay aniguna intaas waxaan ku dari lahaayow mareeg isteed muugay dheheen ma musuuq maasuuqay arkeen mareeg isteed muugay dheheen ma musuuq maasuuqay arkeen haye war waxaa la yidhi ninaan tali jirin hadduu taliyo ninaan tegi jirin baa taga marka mareeg state duruuf cadaa keentay war waa daalaysaane mucaaradnimo xaafaa wax ku waayey maantana gaalkacyo waxaa ka dhacay banaanbax lagu soo dhowaynayo guddoomiyihii baarlamaanka galmudug ee shalay la doortay markaa adeer dadka dhinac ka raaca mareeg iyo muluxmuluux waxba lagu keeni maaye dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac war hooy hooy dhinac ka raac miyay maraya hadda warnimaya war ma haysiine xaaladda muqdisho waa cuslaatay ma ewalay kula fududeed maxaa soo kordhay muqdisho culays waa taqaane war dhagaxaan iyo ganjeelo waddooyinka lagu xidhay waa ogeynin ma guryaa laga dhisi araada bac ii bug ii zaw waa ku ogeyne maxaa soo zaa'idayne aryaadhaha shabaab iyo daacish iyo dawladda xamar waa ku ogeynaxaa kaleoo ku soo siyaaday ma muqdisho maqaamkeedii heshay war ma haysiina warka naga suga guddoomiyaha ganacsatada muqdisho shabaabaa soo magacaabayaa la yidhi shakfiraan ku yidhi afkaada allah ku celiyo hayeh ma mihii cir laga malaysayaa ceeryaama ka timid aroo shinni ha ku dhammayso shinni war ganacsatada haddii bayle dekadda u fadhiistay shabaabna inay bakaaro u fadhiisanayaan iyo suuqbaxaad waa la ogaa war warkaan idin dhammaystire guddoomiyaha ganacsatada muqdisho waxaa magacaabay guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya waxaana ku amray shabaab oo u soo dhiibay oo hebel ka dhigdheheen kadibna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa lala kulansiiyey war guddoomiyaha gobolkoo la weydiiyey ninkaan aad la kulantay shabaabaa soo magacaabaa la yidhiye ka warran wuxuu yidhi anuu ninkaan ma aqoonin rag aan aqaanina waa la socdeen oo ganacsato ah hay-adaha amnigay u taallaa arrintaa inay baaraan oo xaqiijiyaan eebaagoo cumar finis waa sigta xafiiskii guddoomiyihii hore lagu dilo minow shabaab hadda kula kulma
kulmay warnimada gudoomiyaha gobolka banaadir habeenkii uu xilka la wareegayey waa lala dardaarmay waa runtaaho waxaa la yidhi dhangaag wax looma dhiibine adoon isdhigaan soo dhowow dhangaag wax looma dhiibine adoon isdhigaan soo dhowow ama u ilaabay warwar maysiine muqdisho hal magaalo maaha magaalooyinka muqdisho ayaa la yidhaah wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar axmed muqdisho wuxuu ka sameeyey warbixin la yaab leh wuxuuna taaka u soo bandhigay xaaladda ay ku sugan tahay wuxuuna yidhi dadka ku nool magaalooyinka muqdisho aan isu gudbi karin waxay la hoydaan caro ciil iyo xanuun madaxtooyada soomaaliya oo wardhiiglay ku hadli jirtana waxay isu beddeshay jasiirad waxayna ku fiday degmooyinka boondheere xamarweyne xamar jajab waa beri iyo howlwadaag horta anugu waa yaabay wasiir yuusuf garaad maqarafaana lagu bedela masacawad aryaa labadaba waa lagu bedela yuusuf garaad wuxuu yidhi magaalooyinka muqdisho aan isu gudbi karin waxaa ka talisa dowladda soomaaliya cid ka soo horjeedoo amarkeeda ka hor timaadna ma joogto hadda dowladdaa laga rabaa in dadkeeda la tashato inay xal u keento dhibaatadan dowladda haddaan amarkeeda laga soo horjeedin ma la ammaana hana la ammaanay mar hore tiriye war yuusuf garaad wuxuu yidhi qofka markii neefta lagu dhejiyey waxuu iloobaa xuquuqdiisoo dhan wuxuuna codsadaa inuu neefsado keliya maantana dadka muqdisho waxay codsanayaan wadda ay maraan keliya xuquuqdii kaleo dhan ay lahaayeen waa ka tanaasuleen aryaadhaha dadka haddii neefta lagu celso nintaad qaada xumbo cuskayaa la yidhi waa rafta asoo waxuu arka goostaa walaadaha waxaa la yidhi nin gobol ka yimid magaalada muqdisho inta yimid uu ka laabtay meeshii markuu tagaa la yidhi ka warran muqdisho gabay buu ku jawaabay wuxuu yidhi kobtii xaawataakaan tegiya taalladii kale dhagax bay kor saareen waddadii kuna ka siiyeen kuma arag koror muuqda iyo hawl kalsooni leh guryihii kacaankii tegey qaar kabkabayeen hore waxaa loo yidhi kob xumi ma heree koblaa waa hera ee waxaan aan kabkabanno warwar ma haysiine qarax kalea ka dhacay waddada muqdisho iyo afgooye haye haddana ma loo naqay qaraxu wuxuu ka dhacay afgooye meesha laga geli cashuurta lagu qaado dadna waa ku dhinteen dad kalena waa ku dhaawacmeen waxaana lala beegsaday injineeradii turkiga ee waddada dhisaayey aryaadhaha waa markii saddexaad oo turkiga qarax lala beegsadee jidkan dhismihiisu sow sii socod doonaa war yaa raba in wadda laguu dhiso dadka iyo dalkaba in la baabi'iyaa la rabaa walaxaan dhisaa dad niiska dhici maayo ewelaysan socehaynin warwar ma haysiine filim lacag la'aanaha soo baxay yaa jiraaya filimkaas yaa se atoore ka ah filimka kaabalaadina ma leeyahay war aniga filimka waxaa iga muuqday wasiir bayle cumar finish iyo hoosow oo sudad xihan waxaana la yidhi waddooyinka muqdisho kismaayo baydhabo iyo garoowe 112 milyan oo dollara lagu dhisaaya lacagtana waxaa bixinaya bangiga adduunka war waddooyinkii horaaba dhagax lagu xidhaye xaggeen laga keenayaa waddooyinka la dhisayo war wasiir bayliya mashruuciisa waxaa kula talin lahaa muqdishodan ammaankeeda lama sugi karee mid cusub lacagtaasaa ku dhisaan war boormaan ka yimiya beeni maxay tari aryaada qofku wuxuu gaaraa xilli aan toobada laga aqbalin dowladdeennuna waxay gaartay xilli aan warkeeda lagu qanci karin arwar ma haysiine isbahaysiga puntland iyo jubbaland aa lagu dhisa boosaaso waxaana dhisa siciidani iyo axmed madoobe xaaf maxay ugu dari waayeen muku kalsoonaa waayeen hore waxaa loo yidhi iskaashata ma kufto hadday kuftana ma kacdo war ilmalaan hadday isbahaysi yeesheen ilma garan yaa u maqan war ayaga laftooda isbahaysi ay samaysteen waa tii baydhabo ay ku kulmeen war waxaan ma taqaaniine axmed madoobe iyo siciidani nabad iyo nolol inay ka dambeeyaanay rabaan ilma gareenna nabad iyo nolol bay raacayaan araada ilmalaan haddii isbahaysi samaysteen madaxweyne farmaajo dhinacee waaye horta ayaamahan waa wareeraya kayre intuu iga xigaa war waxaa la yidhi qadar waaba ogeynoo farmaajay qadarshaane imaaraadka iyo kayrra ma iskhilaafsan yihiin mase waa isku qayb warwar ma haysiine maqaayad kaaran ku taro dad masaakiina fadhiyaan ayaa maanta bamgacmeed lagu tuuray ma sheekadii ilka casaa asagaa maqaayadaha dhagxaan ku tuuri jiray war weli ardadii ilka casaa joogto ha ii dhoweyn war musharaxiintii galmudug waxay dhaheen annagii xildhibaanadii codkana siilaa waa is arki weyn waana nala kala ilaalinaya xildhibaanadu madaxweyne qoorqoor waa la kulmaan saacad maxay yihiin nimanka kaloo qayliyaya war kuwii ahlusuna hataa qoorta gareen gurigiisay ugu tageen warwar ma haysaane asxaabta tiktok matalaad siyaasadeed bay heleen waxaana ka soo jeeda gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug kaala yahee tiktokna ma beel cusub oo nugu soo korortaya war dowladdeena horta cadaalad ay samaysay hadday xildhibaan ka soo xushay facebook hadday xildhibaan ka soo xushay whatsappka hadday xildhibaan ka soo xushay iimaha haddana gudoomiye ku-xigeen ay siisay tiktok waa cadaaladii ugu dambaysay warnimada hadda kahor waxaa la yidhooday reer baadiyaha magaalo aana u soo safarsaday galabtii markuu bixi lahay uu arkay
gabar yaroo wareejinaysa jalaata titoob hal xabuu ka gato waa la macaanaatay kadibna 5 xabuu inta ka gato dhiisha ku rituu sir ilmihii u geyso habeenkii markuu gurigiisa tagu ilmihii isugu yeeray yiri kaalaya wax fiican idin keena maanta hadduu daboolka ka qaaday waa qoryo iyo biyo kadibna qorigiisu inta soo qaato magaalada la dhex fariis aawa gabadhii yareedo is xirtay aryada waxaas noola imaanaya qararaacda maaqmaaqda nagu kala wada bah warsaas hadii dadka waryaale warkii Soomaaliland dibaddu meey war xisbiyada mucaaradka Soomaaliland maalintii musubi iska fiiji ilaa laakan warbaahinta ay agtaagiin oo ma lahan daraaday waa anagu fiijin garamayna naga tagaafxumada waryaada bulshadu way idin dhageysanaysaa xigmad sheega kalamaan Mustafa Xajar ma aqoonsana miya waryaada Soomaaliyeed waa naqaanay nagala tag waryaa Soomaali waa mar dambe Soomaali kala firdhi wabka idinku